reer Madyan waxay ahaayeen Carab ka soo jeeda Nabi Ibraahim calayhi salaam waxaana loogu magac daray wiilkii uu dhalay Nabi Ibraahim ee Madyan ibn Ibraahim al-Khaliil. waxay degnaayeen dhulka Shaam gaar ahaan meel aan ka fogeyn qowmkii Nabi Luut. waxa uu Ilaahay u soo diray nin iyaga ka mid ah waana nabiga aan doonayno caawa inaynu ka waranno taariikhdiisa. Nabi Shucayb calayhi salaam aftirsiintiisa khilaaf baa ka jira, waxaana ka mid ah kuwa ay culimadu tilmaamaan inuu ahaa Shucayb ibn Nuwayb ibn Cayfa ibn Madyan ibn Ibraahim al-Khaliil. reer Madyan waxay ahaayeen qoom ganacsadayaal gaalo ah, waxay caabudi jireen Ilaahay khayrkii geedkaas oo la oran jiray Ayka. reer Madyan waxay ahaayeen budhcad, waxayna jidgooyo iyo isbaaro u dhigan jireen dadka si ay u boobaan una dhacaan hantida. waxaa kaloo ay ku caanbaxeen khiyaano iyo in miisaanka la dhimo. Nabi Shucayb calayhi salaam waxa uu ugu yeeray inay Ilaahay ka cabsadaan oo ay keligii caabudaan. waxa uuna ka mamnuucay inay u dhowaadaan khiyaanada oo ay ku hayeen bulshada iyo boobka qaawan oo ay kula kacayeen dadka masaakiinta ah. Nabi Shucayb calayhi salaam waxa uu xasuusiyay markii ay ahaayeen kuwo tiro yar oo daciif ah, kadibna Ilaaha awoodda leh uu tiro badiyay kana dhigay qaran dhan. waxyaabaha la yaabka leh ee ay ku kaceen reer Madyan waxaa ka mid ahaa inay jidka iyo dariiqyada fadhiistaan oo wixii soo maraba dad iyo xoolo aanay u aaba yeelin, ay iska xalaashadaan xoolahooda iyo nafahoodaba. koox yar oo reer Madyan ah ayaa rumaysay Nabi Shucayb calayhi salaam, kuwii kalena sidii caadada ahayd way iska sii wateen dulmigii. waxayna la yaabeen diintan soo gashay shaqadoodii iyo suuqoodii, isla weyni iyo kibir ayayna halkaa ka sii qaadeen. reer Madyan waxay xujo ka dhigteen in aabayaashood ay caabudi jireen geedkan oo ay dhaxal iyo caado u leeyihiin oo ay tahay dhaqan soo jireen ah lagana doodi karin. taasina waa arrinka oo cid kasta oo lunsanay ay xujo ka dhigato. Nabi Shucayb calayhi salaam waxa uu ku yidhi, maydan arkayn inaan wada cad ku taagannahay oo eebbana nagu arsaaqayo xoolo xalaala. anigu ma rabo inaan idinku khilaafo waxaan idin amrayo, ee waxaan ku dadaalayaa inaan noqdo kan idinkugu horeeya ee sameeya wanaagga. waxaan wanaag ahayn idima farayo. qoomkaygiiyow ha igu khilaafina, yaanay idin asiibin wixii asiibay qoomkii Nabi Nuux, qoomkii Nabi Huud iyo qoomkii Nabi Saalax. reer Madyan waxay ku dhaheen Nabi Shucayb calayhi salaam, waxba kama fahmayno waxaadna leedahay, agtayadana waxaad ka tahay daciif. hadduusan qoomkaagu jiri lahayn waan ku dhagaxayn lahayn, mana tihid adigu mid xaggeena cizi iyo sharaf ku leh. rasuulkii Allah subxaanahu wa tacaala ee Shucayb waxa uu ugu jawaabay, ma waxaad igu xushmaynaysaan qabiilkayga oo waxaad ka jeesanaysaan Ilaahay iyo rasuulkiisa. markii ay arrintu adkaatay oo ay qaraaraatay, Nabi Shucayb calayhi salaam Allah subxaanahu wa tacaala ayuu ka bariyay in la kala furto isaga iyo qowmkiisa. kuwii iskibrinayay waxay dhaheen, haddii aad Shucayb raacdaan waad khasaarteen. eebana waxa uu ugu jawaabay in kuwii Nabi Shucayb calayhi salaam ka gaaloobay ay ku sugan yihiin baadicad. markii ay gaalnimadii iyo dulmigii ku sii adkaysteen, waxaa asiibay cadaabkii kaasoo kaga yimid xagga Rabbi. waxaa gariiray dhulkii, dhulgariirkaasoo weliba aad u daran. nafahoodii way ka baxday jidhkoodii, waxaana ka sii daran cadaabka sugaya maalinta aakhiro. midaasina waa masiirka iyo cidhib dambeedka ay leeyihiin gaalada iyo inta diidan inay rumeeyaan eebbe iyo nebiyadii uu soo diray. markii hore Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu soo diray kuleel iyo hanfi daran oo aan la xamili karin, waxayna ku yaaceen guryahooda. kadibna way adkaysan kari waayeen oo way ka soo baxeen guryihii. waxaa Ilaahay u soo diray daruur wadata hoos kana dabooshay kuleelkii qoraxda, waxayna daruurtaasi ka heleen neecawda iyo raaxada hadhka ilaa inta ay isaga imaanayeen dhammaantooda, kadibna fadhiisteen daruurtii hoostooda. markaas baa Ilaahay u soo diray naar iyo cadaab daran, waxaana lagu magacaabaa cadaabkii maalinta hadhka. Nabi Shucayb iyo intii rumaysnaydba Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka badbaadiyey cadaabkii. waxa uuna ku yidhi, qoomkaygiiyow waan idin soo gaarsiiyey dacwadii oo idin nasteexeeyey, kamana xumaanayo qoom Allah ka gaaloobay. Ilaahay baan ka magangalaynaa cadaabkiisa adduun iyo mid aakhiraba.